بسم الله الرحمن الرحيم أرنتي حبسك مقالة هرقيسة كدعدي درامدي كدا شيء iyo waxyaalihii warbaahinta saxaafaddu ay ka sii deysay arrinka waxaan doonaynaa inaan bulshada caalamkana u sheegno dadweynaha iyo shacabka reer Somaliland aan u sheegno dowladda reer Somaliland ilaa iyo bilowgii intii ay soo jirtayba xilli kastoo joogtayba maamul kasta oo joogayba saxaafadda Somaliland waxay ahayd saxaafad madax bannaan xukuumadda Somalilandna ay ula dhaqmaysay sida maxaan ku dhahdaayay looga dhaqmo caalamka dimuqraadiga ah ee adduunyada ka jira dowladda maanta jirta saxaafadda Somaliland siyaasadda ay aaminsan tahay siyaasadda ay kula soo dhaqantay siyaasadda mustaqbalka kula dhaqmayso waxa weeye mid ay aqoonsan tahay inay tahay saxaafad madax bannaan oo xorriyad u haysata dareemadooda siyaasiga ah inay maxaan ku dhahdaayay ay si madax bannaan ay u jeediyaan kaliya waxaynu iminka daba soconnaa ama arrintaynu ka hadlaynaa waxa weeye arrintii ka dhacday jeelka warkii ka dhacay saxaafaddu siday warka u sii deysay xaqiiqada ma yahay mid abuuraya xaalado kale oo xagga nabadgelyada dhibaato ku keeni kara taa waxaan u daynaynaa sida aynu ognahay nidaam dowladeed baynu leenahay nidaamka dowladeed aynu leenahay isaga inoo xadeeya xilli kasta goob kasta arrin kasta oo dhacda sifaha loo maro sharciga loo maro iyo qaabka loogu dhaqmayo hay'adaha sharci dejinta iyada oo ay jirto madax bannaanidaasi dowladduna aaminsan tahay mustaqbalkana ay aaminsan tahay arrintaa waxaan doonaynaa waxa ka socdaa iminka waxa weeye hay'adaha sharci dejinta ee dalka hay'adaha nabadgelyada ee dalka sida biliiska maxkamadaha xeer ilaalinta waxay arrintaa ka wadaan oo gaar ahaan cidda gacanta ku hayso biliiska ugu horeeyay xeer ilaalintu waxa dhacay maxaa sharciya iyo maxaan sharci ahayn labadeeda wasiir hadda iminka arrintan aan ka hadlayno waxaa noo keenay inaanu labadeeda wasiir ka hadalnaa waxa weeye arrinta saxaafadda iyo xadhigooda labada wasaaradooda ku shaqo labaanu nahayoo wasaaradda waa wasaaradda warfaafinta oo waa line minister iyada oo ah saxaafadda wasaaradda daakhliguna marka tallaabo laga qaado waa wasaaradda loo aaneynayo inay hoos yimaadaan ama ay xukunto ciidamada nabadgelyada ee tallaabada ka qaaday halkan waxaan doonaynaa inaan ka cadeyno marka ugu horeysa suxufiyiinta xidhan oo aan annaguba ka xunnahay in mar qura la yidhaahdo tira intaa leeg baa ka xidhan inaan cidna dembi aanay lahayn loo samaynaynin inaan cidna sharci si khaldan loogu qaaday aan lagu abaabulaynin waxaan doonaynaa markaa arrintaas sida sharciga Somaliland uu yahay baynu maamulaynaa si la difan baa loo maamulayaa si aan loogu talax teginoo maxaan ku dhahdaye dhib loo abuurin baynu loo maamulayaa dowladda Somaliland saxaafadda weligeed yaalaheed marna gacan maroojin kumay samaynin marna dhibaato kumay samaynin waxaynu doonaynaa markaa uma jawaabaya hadda waxna ka tari maayaan dad isleh saxaafadda kalsooni kaga samaysta oo u dhigaya in ay dowladdu khalad gashay waqtigeeda ayaanu ka hadlaynaayo waxaan isleenahay taasi iminka marxaladeedii lama joogo laakiin arrinkan iminka ku koobannahay waxa weeye arrintaasi dariiqyada sharciga ah inoo yaalaynu maraynaa ajnabiga dowlado fara badan oo dowladaha reer Yurub aan soo weydiiyay qaar waan uga jawaabnay qaarna waan uga jawaabaynaa waxa weeye iyagana waxaan jecelahay inaan maxaan ku dhahdaye aan la politicize garaynin
oon sharciga Somaliland loo gafin dowladda Somalilandna waxay iska ilaalinaysaa nidaamka dimuqraadiyadda ee tobaneeyada doorasho ee geeskan Afrika aanu ku naalla ka dhici kari la aanu ku soo marnay oo dowladda maanta xilka haysa iyo xisbigeedu muddadii ugu badnayd imika ay hayeen mar walba ay ku sifoobaan dimuqraadiyadda maxaan ku dhahdayay ugu tayada rool leh inaanay marna maxaan ku dhahdayay dibna uga soo noqonaynin dhibaatana aanay ka noqonaynin aanaan garan waayi doonin haddana aanu ku sugannahay inaanu si fiican ula soconno inaanu keyska saxafiyiintayada si dimuqraatiga oo nidaamka sharciga iyaga waafaqsan oo waayeelnimo iyo dulqaadasho ay ku siman tahay inaanu u maamulo waana mahadsantiin